qof aad jirka ka gubtay cagaarshow ma ka daaweynayo sababta waxa waaye cagaarshowgu waa waxa keena oo sababa wax la yiraahdo jeermiga la yiraahdo virus Soomaalida waxay ka mid tahay wadamada cudurkan cagaarshowga la yiraahdo aad iyo aad ugu dhaco qiyaastii marka la fiiriyo boqolkii 11 ilaa 12 boqolkiiba Soomaalida cagaarshow ay qabaan una aad iyo aad ugu badan yahay dad Soomaali oo aad u fara badan baana u dhinta cudurka isaga sanad kasta marka aad fiirisid xagga da'da oo kale yaa cudurkan halis ugu jira marka doctor cudurkan da' ma leh isaga laakiin hal cudur ma ahan waa cudur la qaybsamo waay cudurkan cagaarshowga anaga hadda cagaarshow la iska leenahay laakiin waa 5 qaybood oo kala duwan waay marka qaybaha qaarkood waxay u badan yihiin caruurta sida nooca eega la yiraaho badana wuxuu u badan yahay caruurta maadaama lagu kala qaado xagga biyaha iyo cunada wasaqda ama gacmaha nadiif ah lagu xagga cunno mareenka lagu kala qaado badana caruurtu u badan yahay waana kay Soomaalida aad u ogtahay in cudurkaasi jiro oo ay ku arkaan caruurta oo ay ka gubaan oo waxyaalaha waxba aan ficilin ay kula isticmaalaan laakiin afar kale nooc kale ay jirta oo badana ay qaarkood ay arki kareenin ilaa ma artay qofka la baaro marka waa u badan yahay da'sa ma leh badana dadku markuu ku dhaco isaga nooca la yiraaho eega waa akuud waaye ilaa dadku ka baxaa wuu ka dhacaa wuu ka baxaa uma reebo oo dhibaato kuma reebo qofku ku dhacay wuu ka baxaya adigu waxa laga yaabaa 3 sentibaan ilaa 4 sentibaan inuu haayo wuu ka baxaya marka waa nooca kaliya oo hepatitis-ka ka ah akuud aan iraaho degdeg dadka uga baxo waay laakiin noocyada kale waa nooca chronic-da noqdo oo qofka haduu ku dhaco laga yaabay inuu muddo aad u fara badan haayo ilaa xataa uu ka badilaba doctor sidaad sheegtayba Soomaalidu marka aad fiirisid cudurkan cagaarshowga ah qofka markuu ku dhaco takhtar lama aadaan isla markiiba dhaqanka ahaan ay ugu laabtaan oo halkan ayaa laga gubaa qaar wadnaha laga gubaa qaar gacmaha laga gubaa marka gubniinkaasi ayagu dabcan waxay aaminsan yihiin inuu zuulayo usan soo noqonin marka bal inooga waran gubniinkaasi muxuu daawo u yahay waxa waaye waxyaalaha dhaqan ahaan aan iska isticmaalno laakiin qalad ah qof aad jirka ka gubtay cagaarshow ma ka daaweynayo sababta waxa waaye cagaarshow waa waxa keena oo sababa wax la yiraahdo jeermiga la yiraahdo virus kaasna markuu qofka ku dhaco direct wuxuu aadaa oo ka abaaraa qofka beerku ka abaaraa marka baqaarkan aad gubtay cudurkaas beerka ku jira waxba ma ka taraayo marka waa gubniin waa qasaaro laakiin Soomaalida mushkilada taala waxa way cudurro badan iska gubaan marka Soomaalida waxa waaye markii la gubo qofkii dhibkii hay dhib ka badan loo geystay marka kii hore uu hilmaamayo wuxuu leeyahay hadda waa ka biskooday kii hore laakiin hadda kan la ahaayo mooyaane ma fahamtay laakiin dab cudur ma daaweynayo marka cudurkan maxaa lagu garan karaa marka siyaabaha lagu garan karo oo ama qofku ka hortag uu sameyn karo uu dhihi karo ama uu dhihi karo alay fartiiba ay bugtay oo cudurkiiba ay ugu soo socda ama caloosha ay danqanaysa maxaa lagu garan karaa cudurkan waxa horta keena virus wuxuuna u kala baxaa ilaa 5 nooc 5 nooc waxa weeye mid la yiraahdo A mid waxa la yiraahdo B mid waxa la yiraahdo C mid waxa la yiraahdo D midna waxa la yiraahdo E kuwa kala jira laakiin ma badna laakiin 5 hadda ugu badan siiba Soomaalida cudurkan ay noocyada ay qabaan waxa ugu badan eega biiga iyo siiga sidaan day u soo sheegay eega waa nooca lagu kala qaado cunno mareenka biyaha wasaqda la cunno wasaq leh dadka qofka xanuunsan la jooga cunug yar oo qabo laga bedelayo deebarka waxyaalahaas lagu kala qaadaa isaga laakiin waa nooc ugu sahlan waa ugu badan yahay ku dhicidiisa dadka laakiin waa ugu sahlan yahay oo dhaqso ka baxaa uma reebo qofku ku dhaco uu ka baxane dib ugu soo noqdo oo adkayso u abuuraya nooca biiga waa nooca ugu qatarsan waaye oo aad iyo aad dhibaato u keena chronic-kana noqda laakiin isaga laftigiisa qofka markuu ku dhaco 3 nooc oo mid noqonaya qofka ama wuu ka dhacayaa oo wuu ka baxayaa oo markaas adkayso u yeelanaya oo cudurkaas mar dambe kuma dhacaayo
ama waa kugu dhacayaa dhiigaadu ku jiraa cudur sida fiyow ayaa tahay laakiin weli beerkaada dhibaato ma gaarsiinin ama waa kugu dhacay oo beerku dhibaato gaarsiiyo waa aad jiran tahay markuu beerka dhibaato gaarsiiyana cudurkaas wuxuu noqonayaa marka u dambeysay inuu beerka shaqadiisii oo dhan uu gabo oo markaas uu beerka shaqayn waayo oo markaas ama wax la yiraahdo cirrhosis hepatic kugu dhacdo ama kansarka kugu dhaco ayuu marka dambe u bedelayaa la qofkana uu dilayaa aakhirka dambe nooca la yiraahdo karoonka muxuu yahay asaga karoonikada sideedaba cudurrada markay qofka ku dhacaan ama cudurrada waxaa loo qabaa cudurkan waa cudur akuut ah ama cudurkan waa cudur karoonika ah cudurka markuu qofka 6 bilood ka badan hayo ayaa waxaa la yiraahdaa ja chronic waay oo ninkan ja muddo fara badan baa hay cudurkan cudur baxaya ma aha waa cudur joogto ah laakiin 6 bilood ka yar hadduu qofka intuu ku dhacay uu ka baxay cudurkaas wuxuu cudur soo mareen oo akuut ah marka taas waxay ku xiran tahay muddada uu qofka hayo cudurka ma leeyahay cudurkan doctore mi ama magaalo dadka miyiga ayaa u badan ma la dhihi karaa mise dadka magaalada u badan cudurkan dadka qaba runtii miyi iyo magaalo ma kala leh laakiin dabcan cudurkan maadaama uu cudur faafa yahay wuxuu ku xiran yahay meesha hadba dadka u badan yahay haddii miyiga waxaa laga yaabaa dadkan inay meelo fog kala degan yihiin saas isu arkaynin laakiin wuu ku dhacaa cagaarshowga ku dhacaa weliba iyagana waxay aad ugu badan kan ku dhaca maaragtay kan eega ah oo biyaha wasaqda leh iyo magaciisigaas iyo nadaafad xumada ka imaanaya ayaa ku badan reer miyiga laakiin reer magaalkana waa ku dhacaa siiba caruurta aad ba ugu dhacaa kaasayta eega ah dadka waaweynna waa ku dhacaa oo maaragtay da u gooni ah cudurka isaga ama leh marka kaas waxa waa cudurka lagu kala qaado cano mareenka waa noocaas eega ah midkan biiga aan leenahay isaga cano mareenka laguma kala qaado cudurkan waxaa lagu kala qaadi karaa oo kaliya haddii qof qaba dhiiggiisa lagugu shubo haddii qof qaba cirbado lagu daaweeyey adna lagu daaweeyey iyagoon la nadiifinin oo hadda soomaalida waxa aad iyo aad cudurkan ugu badiya waa farmashiyaalka iyo meelaha nadaafadooda xunta oo cirbadaha looga duraayo ama galmadana waa lagu kala qaadaa cudurkan biiga ah nooca biiga ah galmada aad loogu kala qaadaa laakiin noocyadaas kaloo ah haddii dhiig lagu shubo qof qaba ama haddii cirbadihiisa iyo waxaas lagu duray adna lagu duro wuu kugu dhaci karaayo xaggaas ku soo maraya waa noocan biiga ah siiga waa sidaasoo kale laakiin dhiigga lagu shuba iyo cirbadaha la isticmaalo u badan yahay inkastoo ay dhici karta xagga galmadana in lagu kala qaado waa jirta in lagu kala qaadi karo laakiin sida kan biiga u badan yahay uma badna waxaa jira marka laba nooc oo kale nooc waxa waaye nooca la yiraaho D baa la yiraahaa noocaas D-ga la yiraaho isaga dadka toos ooguma dhici karo wuxuu kugu dhici karaa oo kaliya markaad qabto nooca biiga la yiraaho laakiin isaga kaligiis intuu ku yimaado ma kugu dhici karo haddaada bii qabin isaga ma kugu dhacaayo marka talaalka biiga loo qaatana wuu kaa daafici karayaa mid kale waxaa jira asna E la yiraaho E-ga waa sida eegoo kale cunno mareenka lagu kala qaadaa cudurkaas waa cudur aad iyo aad khatar u ah weliba hooyada uurka leh hadduu ku dhaco aad buu khatar ugu yahay laakiin badanaa wuxuu u badan yahay wadamada Aasiya ayuu u badan yahay Soomaaliya oo kale lagama helo cudurkaasi ma jiro laakiin wadamada Aasiya aad u badan yahay marka cudurkan aan anaka halka magac u naqaano cagaarshowg ama indhacasayeen ilaaho wuxuu u kala baxaa shantaas nooc oo ah A iyo B C D iyo E marka doctore Soomaalidu qofka markuu cagaarshowga uu qabo waxyaalaha ay fiiriyaan cidiyaha ayay fiiriyaan ama indhihiisa ayay hoosta eegaan inuu yellow ama waxyaalaha ay yihiin ama indhihiisa hoose inay isbedeleen iyo waxba ay fiiriyaan marka calaamadaha lagu garan karo marka waa calaamado noocee hadda midaas waa hal calaamo oo cudurkan lagu garto la cagaarna ama cidiyaha cagaarna magacaas halkaas uu ka yimid laakiin badanaa cudurkan markuu kugu dhaco xogaa waxa dareemaysaa wax kastoo laba dareemaysaa ina matag isku aragto waa laga yaabaa kaadidaada waxay isu bedelaysaa madow sida Coca-Cola oo kale kaadidaada isu bedelaysaa
saxarada xataa midabkeeda uu isbedelaya xogaa cadaan ah ayuu noqonaya saxarada xogaaga cagaarka ku jira uu ka baxaya meesha marka saxaro cad buu noqonaya sida aan iraaho xarweyga oo kale camal saxaro noocaas uu noqonaya appetite-ka iyo rabitaanka cunada kaalumaya xogaa calool xanuun iyo dhinacaasna waa dareemaysaa laakiin sideedaba xanuun kaleento aad dareemaysid ma jiro sababta waxa waaye cudurkan cagaarshowga viruska keena toos wuxuu u abaarayaa beerkana wuxuu ka mid yahay xubnaha jirkeena ku jira oo aan xanuun dareemin annaga dhinaca midigtuu ku jiraa beerka feeraha hoostooda ku jiraa laakiin haddii xataa aad middo ku jeexjeexaysid ma dareemaysid xanuun beerka ilaahay saas u suubiye shaqo aad iyo fara badan buu jirkeena u qabtaa oo la-aantiis lama noolaan karaayo marka laakiin waxaan calaamooyinka aan soo sheego ah indhahaas cagaaranaya labalabadaas kaadidoo madoobaanaysa saxaradoo cadaanaysa xoogaa yaroo caajis ah tabardarro waxaasa dareemaysaa